dowladda hoose ee degmada Burco oo ka duulaysa ilaalinta badqabka caafimaadka bulshada muwaadiniinta ah ayaa soo bandhigtay alaabo dhacay oo iskugu jiray raashin, timir, sharaabo, daawooyin kuwaasi oo laga soo ururiyay ganacsatada magaalada iyadoona dowladda hoose goob fagaaraha ku gubtay alaabahaasi dhacay. Mid ka mid ah howlwadeenada dowladda hoose ee Burco ayaa ka warbixiyay alaabahani dhacay isagoona sheegay in sharciga la mariyay ganacsatadii laga soo qabtay alaabahani dhacay meheradahooda, waxaana uu fariin adag u diray ganacsatada kale ee degmada Burco. maanta halkan ku gubaynaa alaabo badan oo dhacay oo aanu ka soo qabanay magaalada, alaabahaas oo iskugu jira raashinkii, sharaabadii, dawooyinkii oo aanu ka soo qabanay ganacsatada magaalada ku ganacsata. ilaahay mahadii si wanaagsan baan u gubnay. dadkii alaabaha aanu ka soo qabanayna xarig iyo ganaax bay mutaysteen. waxaan leeyahay muwaadin xil baa kaa saaran ummadda iyo dadka, maadaama aad ganacsado tahay waxa waajibaad ku saaran inaad ummadda ilaaliso caafimaadkooda, inaad ilaaliso badqabkooda, inaad meheradaada ka warhayso oo alaabta hadday kugu dhacdo oo aad la soo xidhiidho waaxda fayadhowrka oo aad tawar alaab dhacday baan hayaa kaala iga qaada. markii laanta fayadhowrku kuu timaadana inaad soo dhaweyso, gacan aad ka siiso oo aanad hor istaagin aanay ku baadhin. qof kasta oo lagu qabtana wuxuu mutaysanaya ganaax iyo xarig. alaabahani iskugu jiray raashinka, timirta, sharaabada, daawooyinka ee laga soo ururiyay ganacsatada magaalada Burco ayaa ah kuwa dhacay iyadoona qayb ka ah dadaalada kor loogu qaadayo laguna dardargelinayo shaqada iyo howlqabadka muwaadiniinta ee duqa degmada Burco Mustafa Maxamed Muuse Calas ku howlan yahay. Abdullaahi Maxamuud Muuse Xudayfi, Telefishinka Qaranka Somaliland, Burco.